Dowlada hoose degmada Burco ayaa saakasi rasmi ah u bilowday Banaynta Wadooyin ay dhisi doonto dowlada hoose degmada Burco kuwaas oo ka dhigi doonto sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dowlada hoose wada laamiya oo isku xidha suuqyada kala gedisan magaalada Burco. Banaynta wadooyinkan ay maanta bilowday dowlada hoose degmada Burco ayaa waxa ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo maayirka hoggaanka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan. halkan saaka waxa laga bilaabayaa wadada تليسون هرمرتا اللي بدأ اللي مسكو حرس هي أصلاً وإلى 600 متر وحن لا يكرهين ونسي ونأكسن كل ماتو وعندي بلهين وحن نوع هذي وضد السيلة دوام قام بكيه هنشي صار دون قام بكيه شيء وحيدنا هذي وضد الطاق أفريد 8 كيلومتر يعني أقبلني المجال ده يعني كسوق صدحها ودان القاس صدحها ودان بلاها soo socda baan ilaahay ka rajeynaa in dhamaadaan halkan waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha masaaka u nimi ee aan u sheegnay in halkan wadaan ka sameeyno ay furfurtaan oo si qurux badan oo degan nugul nolol shaqeeyay hantidooda furfuray ayaan u mahadnaqaynaa waxaan u sheegaynaa wadada imika aan ku soconaa waxa weeye October waxaan u sheegaynaa inay ku daydaan dadka saaka hantidooda aanu furfura ee furfuranaya saaka waxay dib u bilownay wadadii hore ballanqaadkeeda aheen halkan uga ballanqaaday beermadoobe ilaa iyo spearback khaliij spearback wadadan waxa qayb muhiim ah ka qaatay ganacsatada wadadan ay hormarto salaama bank iyo shirkadda telefoonada telesom shirkadda najah shirkadda dhismaha ee daryeel baa qayb muhiim ah ka qaatay waana waxa qura ee gobolka iyo degmadu ay ku horumarayso in dawladda iyo shacabku ay iska kaashadaan si magaalada horumarkeedu uu taam u noqdo bilicdeeduna u soo baxdo wadadani waa wadada halbowlo oo ah ganacsatada odayga magaaladu sheegay inuu guudaan maadnagu ku dhayahay ciidan bulshada u mahadnaqeen ilaahayna u mahadnaqdaan deegaanka magaaladu uu wada koob ka yahay wax badan bay qabtay dadweynaha waxaan uga mahadnaqaynaa qaabka yani sharafta badan ee ixtiraamka leh ee mudnaanta badan leh ee ay wax qabad ku taageerayaan waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga ah News Burco.